waxaan ku leeyahay xamse cabdi barrow in adeer abaal raaga rag iyo geel baa haddaad maqli jirtay abaal raaga rag iyo dumar iyo reer SSC baale baan ku leeyahay raggii talin jiray weligood jiray dadku iskuma jiray arrimin jiray inay xamar caydha ka qaadato marna cashuurta shabaab siiso xamar lagu gubayo marna ay kala goosa taageerta rabtaay xamse cabdi barre matalaad marag leh ra'iisul wasaare daarood oo saaka caawayga qiimo badan dhiye guusha uu xamar ku tagay ama ku joogo xinjiro rag buu ku tagay iskama tagay xamse cabdi barre waxaan leeyahay rijaal baa tahay darwiish baa tahay daarood ismaaciil ee dunta xariirta ee dahabka ra'iisul wasaare xamse cabdi barre oo kursiga siyaasadeed ee dawladda federaalka Soomaaliya ugu matala Soomaali weyn inta ku hadasha afka Soomaaliga inta jecel midnimada ummadda Soomaaliyeed daraawiish raggii talin jiray weligood jiray dadku iskuma jiray arrimin jiray dadkii taariikhda lahaa baan caawa halkan kala hadlayaa inta daarood ismaaciil ee dunta xariirta ee dahabka leh inta midnimada Soomaaliyeed iyo wada jirka ummadda Soomaaliyeed jecel baan halkan ka salaamayaa waxaan aad iyo aad ugu hambaliyeenayaa shacabka reer SSC Khaatumo oo aan leeyahay waxaad gaadheen guurihiinii guul ka mid ah guul dhiig badan ku soo daatay xinjiro badan u soo qubteen wiilal badan loo waayay magaalo dhani u duntay firdhiye guusha uu xamar ku tagay ama ku joogo xinjiro rag buu ku tagay iskama tagin dheel iyo sacabtub kuma tagin xinjiro rag buu ku tagay xamar waxaan rabaa inaan halkan ka hambaliyo iyagana oo bogaadiyo dawladda federaalka Soomaaliya oo uu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dal xoreeye dal dhise siyaasi diblomaasi oday aqoon-yahana sidoo kale waxaan hambaliyo bogaadin iyo ammaan iyo taashboqor basaarayaa ra'iisul wasaare xamse cabdi barre oo kursiga siyaasadeed ee dawladda federaalka Soomaaliya ugu matala ra'iisul wasaare xamse cabdi barre waxaan leeyahay rijaal baa tahay darwiish baa tahay daarood baa tahay oo nool haliyey baa tahay diblomaasi baa tahay qunyar socod baa tahay qof diin iyo dhaqan leh baa tahay waxaan ka raali gelinayaa in badan oo magacayaga inta si xil loo adeegsaday lagugu aflagaaday ra'iisul wasaarow waxaan ku leeyahay xamse cabdi barrow in adeer abaal raaga rag iyo geel baa haddaad maqli jirtay abaal raaga rag iyo dumar iyo reer SSC baale baan ku leeyahay waan kugu hambaliyeenayaa doorka geesinimada leh ku dhaca leh matalaada maragga leh ee aad qaadatay sida milgaha iyo maamuuska leh ee madaxweynaha SSC Khaatumo iyo waftigiisii aad u soo dhaweysay maamuuskii madaxweynaha u siisay ee milgaha iyo sharafta lahaa waan kugu hambaliyeenayaa waxaan kala rabaa inaan la hadlo ninkii xayir maareeyo waxaan arkayay qoraalkii ra'iisul wasaaruhu soo qoray uu leeyahay madaxweynaha dawladda Khaatumo intuu muraara dilaacay uu ku soo qorayo maya gudoomiyaha gobolka uu la kulmo sool waxaan leeyahay oo maanta la hadlaya beesha dhexe isaaqow horta anigu waxaan isweydiiyaa reerka ma waalan yihiin ma miyir qabaan ma isriyeelayaan wiilka xamar jooga ee xildhibaanka ah ama ra'iisul wasaare ku-xigeenka ka ah ama wasiirka ah ee doonaya isagoo xamar jooga oo kursi Soomaaliyeed ku fadhiya inuu u ololeeyo kala go'a ummadda Soomaaliyeed oo uu qadiyada baarlamaanka Soomaaliya ka difaaco maamul gooni goosada waxa weeye waa qof aan xishoonayn dhaqan lahayn diin lahayn damiir lahayn kaasoo kale wuxuu istaahilaa in inta la dhangadeeyo laga soo raafa xamar ninka aan midnimo Soomaaliyeed u ololeynayn ama gabadha aan midnimo Soomaaliyeed u ololeynayn ee sidii Yurub iyo Mareykan iyo Ingiriis caydha looga qaadanayay inay xamar caydha ka qaadato marna cashuurta shabaab siiso xamar lagu gubayo marna ay kala goosa taageerta rabtaay dhig xasaanada ummadda Soomaaliyeed aad u sidanta dhigtaan ka daga Hargeysa idinkoo dhammaystiran oo aan maamulka iyo dawladda iyo jamhuuriyadda Soomaaliya ka tirsanayn oo aan matalaad ku lahayn
waxaad doontaan gooni goosad laakiin dhuumasho dhabarku muuqdo hasha geela cuntay cabaada laydka yeeli maayo matalaad baanu ku yeelanaynaa baarlamaankii iyo dowladnimadii Soomaaliya gooni goosadna waanu u ololeynaynaa cid idinka dhageysanaysa ama idinka aqbalaysa haba yaraatee ma jirto waxaan leeyahay dalku isku hamrashadii iyo subaal xoftayntii iyo baarlamaanka musuqmaasuqa ku shaqayn jiray waa ka soo gudbay dowladnimo loo talaabsaday annaguna midnimo Soomaaliyeed baan u shaqaynaynaa sida wasiir fiqi sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuudow waxaanu kaala qayb qaadanaynaa xoreynta Soomaaliya waxaanu kaala qayb qaadanaynaa xoreynta dabargoynta shabaab anaa kula xidhanaya direyska waxaanu ku keeni doonaa taangiyo waxaanu ku keeni doonaa wiilashii daraawisheed ee gumaystaha dhulka ka saaray ee Ingiriis kiciyay ee sanado 3 sano jirta kiciyay annagana kicin doono guutooyin baanu keenaynaa daraawiisha garabkaagaanu nahay dowladnimadaana kugula shaqaynaynaa midnimada Soomaaliyeed baanu kugula shaqaynaynaa oday Soomaaliyeed baa tahay xamse cabdi barre matalaad marag leh ra'iisul wasaare daarood oo saaka caawayga qiimo badan oo aan uga karaamo iyo ixtiraam badan ay xamse cabdi barre wala aanu jirin maamuuskaygi baan namarisay milgahaygi baan namarisay xamse waadigu matashaa meeshaas hambaliyo beerka ka ogsooni boodada markii aan ka jabayo boqonka taagiis habeenkiiba way bilan lahaa bahalka cawlaaye ninkii buurta dheer igala baxay beerka ka ogsooni ninkaan mikrofon qaadan siidina qaadan ummadana ogeysiin dhulbaanta waxa uu qabtay ee maanta kursigii Soomaaliya ugu sareeyay maamuuska la arkay iga sameeyay bogga iyo beerka waa ka ogsooni taas boqorna waa ku saarayna xamse cabdi barrow cimrigaa ha jiro magacaa ha jiro adaa nagu matala adaana nagu matali doona adaana kaaga dambeynaa ra'iisul wasaare madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ku leeyahay reer Sool waa garabkaaga haddii reer Sool iyo dowladnimada Soomaaliya loo kala sheekeyn jiray waa ka soo gudubnay caawa madaxweynahayagu waa kula joogaa isagaana matala masiirkayaga iyo matalaadayada firdhiya jaangooynaya isagaana kala hadlaysa haddii shalayado mar boqolana sheeganayso dhulkayagana dispute area qaar lagu sheegayo aad arki jirtay masiirka dhulbaanta saaka firdhiyo kula joogo gacantiisa ku jira SSC go'aaminteedina gacantiisa ku jirtaa waana ku hambalyeynaa waana ku ognahay qabiilna qaranka ka weyn waxaan kala rabaa inaan ku daro oo aan la hadlo shacabka reer SSC waxaan idin sheegayaa haddii isaaq laga sugayay nabad oo go'aan nabadeed la sugayay beeshii isaaq waxay guddoonsatay dagaal musabbixi moodiye maal wixii wahayo buu soo siistay hal naaskeed nin gaadha oo isaaqana lagama iman waa weerar inaka ilaahay waa ku jabi doonaan laba masalaba waa u jabayaan dulmigii ay markii hore ku jabeen mar labaad waa ku jabayaan inagoo aan dulmi samayn oo aan xuduudkeennii dhaafin oo aan tallaabo xuduudkeennii ka tallaabina waa ku jabayaan ta kale oo ah inaynu 400 oo ciidankoodiya oo raggii magaaladeena duqeynayay oo taliyay ciidanka amarkiisa bixinayay 400 oo nin uu ka mid yahay Faysal Cabdi Bootaan maxaabuus iyagoo maxaabiisno ah oo aynu gacanta ku hayno oo aynu xeerkii maxbuusnimada marinayna muuse kuma guuleysanayo waa ku jabayaa waxaan leeyahay ciidanka SSC khaatuma difaaca bir nooga dhiga waxaan kaloo leeyahay qurbo jooga dhulbahante daraawisheed kuwa dalka lagu difaacay awoodooda iyo dhaqaalahooda waxaan leeyahay ka sii badiyay dadaalkii sidii guushu u dhacday waxaad moodaysaa inaynu yara jiifsanay oo dadkii ismahadiyeen laba dadaalba waa la idinka rabaa dhulbahanta qurbo joogiiso dadaalkii difaaca dalka waa la idinka rabaa inaad laba laabtaan dhismihii laascaanoodna waa la idinka rabaa ballanteenu waa laascaanood qurux badan ballanteenu waa laascaanood lagu soo wada hirto ballanteenu waa laascaanood nabada waxaan leeyahay dhamaantiin hambalyo aad baan idin salaamayaa waxaan leeyahay taashka boqorka ay saaran dowladda federaalka Soomaaliya